hayn waa waxaadulkeena u gaarae laynagu garta reer guurayiyo gabadh simaatidcaani waa waxaadulkeena u gaarae laynagu garta geed qodaxleyo guduniyo hangool waa waxaadulkeena u gaarae laynagu garta dalguduudanon gobol doonahayn waa waxaadulkeena u gaarae laynagu garta dibigeedtaliyayda gorad madow waa waxaadulkeena u gaarae laynagu garta ku soo dhowaada barnaamijkan oo ah barnaamijkii ugu horreeyey ee barnaamijyo taxanaa oo haddii aan la yidhaahdo dhowrka toddobaad ee soo socda a idinkala socon doontaan telefishanka universal barnaamijyadanina waxay idinka imanayaan deegaamada koonfurta kaga beegan magaalada hargeysa waxaannu maanta joognaa deegaanka xadhig oo koonfurta bari kaga aadan magaalada hargeysa geelan aad arkaysaan waxa uu ka mid yahay geelal fara badan oo uu iska leeyahay ninka la yidhaahdo mustafe cali deeq geela halkan joogaana waxa weeye intii irmaanayd waxaa lanoo sheegay geelashii kale inay ku maqan yihiin hawdkaa sare barnaamijyadan waxaa marti noogu noqon doona ama aan idhaahde xidig ka noqon doona muna jaamac oo iyadu ah gabadh ka shaqaysa xayeysiinta dharka oo caalamiya muni waxa ay ku dhalatay waddanka sacuudi arabiya iyadoo bil keliya jirta ayaa waxa ay timid magaalada london iyadoo la socota qoyskooda waa 28 jir ka sokow shaqadeeda xayeysiinta dharka waxa ay ka shaqaysaa oo ay u dhaqdhaqaaqdaa xuquuqda aadamaha iyo gargaarka aadminimada waxa kaloo isaguna barnaamijkan ka qayb qaadanaya oo xidiga labaada cabdilaahi qaasin oo nin injineera cabdilaahina waxa uu ku dhashay magaalada Kampala ee xarunta waddanka Uganda labada hawlood ay qabanayaan ama casharada ay qaadanayaanna way kala duwan yihiin cabdilaahi waxa la barayaa sida geela loo raaco sida loo liso iyo waxyaabaha kale ee la xidhiidha sida geela loo dhaqo hadday noqoto suugaantiisa iyo waxyaabaha kale la halmaala munina waxay u tegi doontaa qoys Soomaaliya oo reer guuraaya oo ku dhaqan deegaanka qool caday oo isaguna ilaa 40 kilomitir dhinaca koonfurta ka xiga magaalada Hargeysa waxa munana la bari doonaa oo gabdhuhu ay barayaan sida ariga loo raaco iyo sida loo liso iyo sida looga warhayo iyo hawlaha kale ee qoyska ay ka qabtaan gabdhaha filkeeda ee iyagu ku nool nolosha reemiga bal muna aan iskiin bar horta marka hore muna السلام عليكم calaykum assalaam deegaankan oo kale weligaa hore ma u aragtay my maanta ay ugu horeysaan alxamdulillah waa very beautiful gartay dhulkan laakiin waxaan u malaynayaa iyo magaalada Hargeysa waa markii labaad aad timaado Soomaa waa markii labaad Hargeysa imaado halkan tegno maanta weligay mayman waa markaydii ugu horeysa and inshallah wax baran baa soo baranaya nolosha miyiga waad maqli jirtay Soomaa waa run waa maqli jiray ayay iga sheekayn jirtay sida caanaha loo liso iyo ariga sida loo ilaaliyo laakiin weligay ma sameynin gartay maxaad filaysaa dhowrka maalmood ee soo socda reerkaaynu la joogno wax baran baa filaya laakiin bambaraha iyo alaabaha yaryar ee dhulka guurguuranaya ayaa iska ilaalinaya sida kale waxaa filaya in wax baran karo af Soomaaliga laakiin aad iyo aad buu fiican yahay inkastoo Sacuudiga aad ku dhalatay adigoo bil kaliya jirana magaalada London ay soo guurteen waa run marka koranay hooyo anigu oran jirtay de afkiina iyo dhaqankiina waa muhiim waana barataan inshallah de markan ku noqro Ingiriiska af Soomaaliga waa sii fiicnaanaysa inshallah waayi waxaan filayaa dhowrka maalmood ee soo socdana af Soomaaliga inuu sii fiicnaan doono abi maxamed jaamac waa nin odaya oo inkastoo imika uu degan yahay magaalada Birmingham
waddanka ingiriiska haddana aad iyo aad u yaqaana deegaankan iyo guud ahaanba dhaqanka soomaalida aabi dhinacnaba uma yaraysto isagana waa isbaran doontaan dhowrka maalmood ee soo socda aabi waxaa uu inooga warrami doonaa oo inta barnaamijyadani ay inoo socdaan uu inooga sheekayn doonaa waxyaabaha isbeddelka ee sannadahan dambe ku yimid dhaqankii reer guuraannimada ee soomaalidu ay caanka ku ahayd aabi deegaankan aynu joogno ka bilow maxaa la yidhaha horta bismillaahi raxmaani raxiim dadka iyo intayna daawanaysaba waynu salaamaynaa halkan aynu iminka taagannahay horta waddada waa waddadii salaxley ku socotay ee ilamaa iyo awaara tegaysay iyo hargeysa isku xidhiidhinaysay weeye halkan aynu iminka marayna ee aynu taagannahayna waxa weeye waa jabka weyn ee uubaale ayaa la yidhaahdaa waana isha gob kale markaa waa jabka uubaale oo waa uubaalaha weyn baa la yidhaha midna waa taynu soo dhaafnay tani waa uubaalaha weyn markaa waxa weeye biyahana waa arkaysaan biyahaasina dhul fog bay ka soo rogmadeen bari bay u socdaan galbeedna way ka yimaadeen marka waa dhul barwaaqa ah oo wanaagsan oo haddii roobku helo aad iyo aad u qurux badan weeyaan way ka muuqataa inuu yahay deegaan aad iyo aad markuu rooban yahay u qurux badan aabiyow qool caday aynu ku soconnaa intay inoo jirtaa imika qool caday hargeysa ilaa wuxuu jiraa ilaa 40 kilomitir markaa halkan aynu imika taagannahay waa uubaale waxaa laga yaabaa inay ilaa iyo 8 mayl ee hargeysa u jirto ama 8 kilomitir ama 8 mayl u jirto marka waxa weeye way inoo dhowdahay qool cadayna way inoo dhowday toban baana ka sokaysa waynu sii maraynaa aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaan idinka ballan qaadayaa waan hubaa in sheekada aabi aydan ka xiisa goyn doonin sidii aan horeba u sheegayna uma yaraysto dhaqanka soomaalida iyo ka faranjiga iyo suugaanta soomaalida midnaba markaa safarkii baan halkii ka sii wadanaynaa dee waa inoo qool caday wiilgeel jiraan gaajadu karayn waa waxaa dhulkeenna u gaarae laynagu garta reer guurayiyo gabadh simaatidcani waa waxaa dhulkeenna u gaarae laynagu garta geed qodaxleyo guduniyo hangool waa waxaa dhulkeenna u gaarae laynagu garta dalguduudanon gobol doonahayn waa waxaa dhulkeenna u gaarae laynagu garta dibigeedtaliyayda gorad madow waa waxaa dhulkeenna u gaarae laynagu garta waryaa mustafe waa bal iska warrama ilaahay nimcadiye reerku siday yihiin reerku fiican yahay ها ما شاء الله قرب يدي كنت بيشر هو بده هلا محليتدن هاي دوتن حريدي مل والبا ودنay ان مصطفى waxa weeye ninka reerkan iska leh waxa joogta xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waliba Mustafa hooyadii anagoo isbaranay markii aniga aabi anu reerka shalay u nimi dhoobadana arkaysaanay gaariga ku taalaana ma aha untii roobkii maanta roobkii shalay markii aanu soo sahaminaynay halkan ayaa weli gaariga ku taalla waana astaanta barwaaqada marka dhulkuu rooban yahay ها deegaanka waa si qurux badnaaday sidii shalay ka qurux badan Mustafa cagaarku waa hadda Ilaahay baa wax nimceeyay oo ka cagaarkii markay isgooyay haaya xaraduna ay waran tahay Ilaahay baa mahadle ma sha Allah shalay iyo maanta isbedel baa jiro oo waxaan ku wada Ilaahay baa raxmadiisa keeni karo nimcadiisa baa lagu reynaya labadan nina yar waa labadii mataana Xasan iyo Xuseen labadan Xasan iyo Xuseen waa mataana way ninka kalena waa ninka la Cabdirasaaq waa ina Mustafa isaguna Mustafa mataana ku xiga ma sha Allah adeero iska warrama soo lama fiicna waryaa soo ma fiicnidin ninkan aanu shalay isbarannee waryaa xuseen soo adeer ma wanaagsanid haya xasan iyo war adeero soo ma fiicnid maasha allah salaamu calaykum haye iska warrama soo ma wanaagsanidin maasha allah waa hinda gabadhani waxa weeye Mustafa xaaskiisa shalay weydii ka isbartay muna والله لو سوما وناكسندين إلهي نعاديه دي روب كيو نوغو كين دنبي وانا معايستان دي أنا قلنا وانا سوق قوري سيدي قرشوها
saddex maalmood baanu dee idinla deganaanaynaa adeero iska warran magacaa cawo maasha allah haye hooyo soo lama wanaagsana ilaahay galadiye sideetiid adigana magacaaga maxaa walaal raxma hore ismaydan arkin markaa barnaamijka xooggiisu raxma iyaba ku socon doonaa muna anigii aabina markhaati baanu ka noqon doonaa iyo inta kaleba markaa dee aad iyo aad baa mahadsan tihiin maryami waa mustafa hooyadii maryamina waxay haddii alla ka dhigo qayb ku yeelan doontaa barnaamijka iyadoo ka warrami doonta bal hadda nolosha miyiga sida iminka isu beddeshay iyo sidii waagii hore maryami ay u soo joogtay noloshu ay ahaan jirtay awrtii unbaa naga maqnay annaga qudhaydu dee kama dhacno reer soo guuray xamaantu aad bay u fara badantay haya wiilgeel siran qaajadu karayn waa waxaa dhulkeenna u gaarae laynagu garta reer guurayiyo gabadh simaatidcani waa waxaa dhulkeenna u gaarae laynagu garta geed qodaxlaiyo guduniyo hangool waa waxaa dhulkeenna u gaarae laynagu garta dalguduudanon gobol doonahayn waa waxaa dhulkeenna u gaarae laynagu garta dibigeedtaliyayda gorad madow waa waxaa dhulkeenna u gaarae laynagu garta iminka waa wakti casar gaabada waxay la joogtay hinde cali oo ah hooyada qoyskan hindaay abaarihii berigii dhaweyd dhacay aadka xoolo uga hoobteen imise neef baa idinka soo doogay waxaan nooga soo doogay dee waa adiga arkaya oo 3 laxaad iyo 2 riya markii horena adhigiinu intuu ahaa dee waxay ila tahay iminka haddaan sheegi lahaa dee adhigayagu intuu ahaa waxaba la moodaya malaa inaan riwaayad dhigayo oo kale halkaasaanu kaga raray isagoo fara badanoo dee 200 konton dheer yahay iminkana waa adiga arkaya 2 sannadood mar hawd baanu raray ma la galbeed calaya kulli xal intaysaa ka joogta marka idaha aad ugu sii baxay baa la yidhi abaartii miya annaga idaha iga riibo way badnaan markii la isku daray hase yeeshee idihii dee waa adiga arkayo 3 neef iyo ka joogaba geelina xaguu ku maqan yihi geeli waa tan iminka roobabkana yar seejiyeen markaa kolkii hore isaguma badnayn laakiin abaarta waxba kama raacin awr baan ku daro xaggaasaan u rara waa imisa halaad geeluna geelu ma badna waxa weeyaan 4 neef waa 4 halaad waa tay marka ay sidoo kale barwaaqa u dhacday abaarta ay ka dambayso xooluhu siday uga soo doogaan si fiican waa tay waxaan ku guri inta yare ku soo hadhay imika wadiga arkaya riyi intaas ka soo hadhay ciir baanu ka lulanaa subag baanu ka lulanay haddii aan deemka sinaaxta adigaaga ka soo riyay waa taasoo isagoo inta lag waan ka soo riyin karayna haya de waa ma sha Allah wallahi way nagu filan yihiin ilaahay waa tay hablihii muna iyo raxma waxay imika u tageen adhigii deedna iyagana ku daba tegaynaa bal hadda sida casharadii u qaadanayso mune ayaynu eegaynaa iyo sida ay raxme u barayso sida adhiga loo raaco iyo khaasatan xilligan oo kale waxyaabaha la sameeyo marka iyagana ku biiraynaa imika
dawin dhex joogna imika u mayracan iyo dhex joogna haye iska daaqay imika haye iska dhex fadhiisa dhirahan aad fadhiisan geedkan oo kale haye imika iska fadhiisan ka maalkan doolgal oo kale haye ee fadhiisan iska daaqaya markuu soo duubin baad ka reebaysaa dacwada ha marka dacwada ku soo cararto wax yar oo ariga ka yar marka ku soo cararto baad ka reebaysaa dacwada isma hooy oran heestii dawcada ha marka dacwada aad markaa hooy dayo heeday dayo faaraxay heeday faatiso heeday faaduma ardoy heeday waa la dilayaay waa la dabayaay hay soo dhawaandoos haye bana hooy huuralay dacwa baadnas hooy maalinta dhow erigasaad inta ku dhowdaada marka wuu cararaya waan ku arkaa walalan sax ana way ka carar marka dawga carartidna way iska cunaysa iska cunaysa marka dawga carartid dada subaxiina marka la sii daa imika ma xarayna subaxa la sii deynaya hadii marka cadaad soo baxdo ha ay la sii deynaya dadana waad imika kale saa uma joogayo wuu yaacaya marka subaxii la soo daayo wuu yaacaya ha dadana madaxaad ka maraysaa madaxaad ka fadhiisanaysaa ha baad oranaysaa ha baad oranaysaa dadana markaas uu daaqay marka haa tiraahdo madaxa ka fadhiiso ha ay ku daaqay markaad guriga ka fogaatana wad soo rogaysaa gurigaad ku soo celinaysaa marka way saaxanayaan ha marka dadana wuu iska soo daaqaya wuu iska fadhiisanaya hadaad ka hadidna dee wuu iska baxsanaya marka subaxa la sii daayo waa fahmay wuu iska yaacaya meelahaas iska marmaray aniga horta adigu way isku kay wara eegihiin maxaa ku garataa ma magac bay leeyihiin maxaanu yeedhaa ha magacay leeyihiin riyahan magaca dumarka oo kale aan doono u bixina magaca dumarkayba leeyihiin haye ubax baa la yidhaayo laban baa la yidhaayo oo qol magac bay leeyihiin doono muuna baan u bixina riyaa qaar oo muuna baan u bixisay ha muuna baan u bixina raxma baan u bixina dumarku bay la magaciin riyo imika muuna iyo raxma sidee baan u kala garanaysaa ayaga markaaba ku iman imika riba ubax la yidhaayo haye midna mataan baa la yidhaa mataanay hayn ha imika riyo badan baa hadaan imika u yeedho markaabuu kugu soo yaacaya waa hadda waa inuu waxaa sameynaayo ha qaar badan baa imika hadaan imika mid baa ubax la yidhaa kowle riyo waaweynaa magaca lahaa imika abaartii baa laysa kuwan waa kuwii ay dhaleen oo weli magaciide dee waa loogu maqanyo imakuunbay dee kuwani magacyadii dee imakuunbay joogaan loo bixin lahaa oo abaartu mee riyarii kale mee dileen ha arigii kale abaar baa dhamaysa abaarta ma taqaanaa ha waa garanay waa drought abaar baa dhamaysa arigii kale kuwana waa ido weeyaan sidee ma sii tirisaa intaana guriga ka soo bixin ha markaad xaraynaysaa waad sii tirinaysaa ha inuu hubsatid ha waay oo imise jir baa ku bilaabmatay waxaan in ariga ilaalisid 7 jir ayaa ku wara baratay yaalkan ugu weynaa 7 jir baa man ka sii yaraa markii la raaciyay haye in ku raaci jiray dee dhul fog ha magaalkan weyba oodantayde dhul fog baan ku raaci jiray oo adiga mee kala jeceshahay ariga hawaan kala jecelahay kee baa jeceshahay kuwe mar baan tan joono idaha amba ri oo kale aan iska jeclaada oo idhaahda aniga leh idaha ha waa kuwan dusha madow leh iyo kuwa cascasiya kuwe baa laxdaa madow oo kale imaka kan laxdaa berida madow oo kale kan ha ayaa fiican ha amba ri madow oo kale oo macaan yihiin may waa isku midun ha laakiin adiga iska jeclaaday ana iska jeclaaday oo ma ku maqlaan marka u yeedho marka kaali tira kugu soo yaacaya kuwaas la qaatay ha kugu soo yaacaya laakiin kuwan oo kale way kugu soo yaacaya ilaa tacad ilaa tamado marka kaali tira geedkan meedhax baan ka diiranaya ha markuu arigu xasilo oo kale arigii baa marka xasilay oo meedhuhu waa hay meedhaxa waad soo dilaacanaysaa intaad geedkan goolka soo sidid ayaad soo dilaacanaysaa haye dadana waad mulaax baad ka dhex saaraysaa jirif baad iska tuuraysaa haye inta kalena waad ka dhex dilaacanaysaa waad calaashanaysaa oo maxaa lagu sameeyaa xarig baad ka soo haysay xarig ha daa doonto waad tidcaysaa haye daa doonto caws baad waxbaa lagu waad soo haysaa ha waad tidcaysaa oo kale intaad calaaliso markuu arigu kuu xasilo ee soo hanaysaa ma geedkan baa ha oo kan dhowba meena soo jiidan karin may kan waa ood weyn ha waa arkaa haye hay marka beesa u diirto haye saamo diirtay ha tii kaayar xumaato ku dhida
ودير ملاحينسا ملاحو كله ملاح رواحي واساسا واحد كريو صدير كاسو كاد كارف ما ها سوق انا كنت سيسام تري هي ملاح دو كاس كلا سوق كثير كاوين كاريبيه هي كثير كاس سايس غريس كثير كاس مارك واركا waxaad kala dhex baxaysaa intaasoo kale dhexdaa ka goynaysaa intaas kale kala dhex baxaysaa markii caadi ku geero diir miiro saas kala saas kala u diiraysaa taas in baad ka tuuraysaa intaan waa la iska tuurayaa waa khasaaro intaas waa intii intaa waa iska tuuraya mar walba haye waa jilow baa leedahay intaa jilow waa inta khasaarada intana waa intii la soo hanayay la calaashanayay xariga laga dhigay intaana waa la tuuraya geed bay ka urisa intaas waa intii qodxa iyo xaal hayso waa iska tuuraysaa intaa geed walba intaa waa iska tuuraysaa xameedina dawo kale ayay ku urisa galool baa leedahay galool calaashanaysaa haye ma hasun may waa caadi suwaysa markaa taadu ku daaqaya suwaysa markaa baa arkaa sidee saas suwaysa oo imisa baa ka dhigi kartaa intan in badan buu ku noqonaya in badan ayuu ku noqonayaa isku daado inuu soo laho okay please marka maxaa sameeyay sidaas baanu maroojiya saa marooji saaliga ku yarqab hakan oo qaraade kin weerarta saan qarada shaashiya shaashiya sausa waka sausa qoshada timaha loo gabo iga eeg ma sameey wadiga sameey intiina imika nagu soo beertay waxaanu joognaa deegaanka qool caday oo koonfurta ka xiga magaalada Hargeysa ilaa 40 kilomitir deegaankan aanu joogno waa deegaan imika aad iyo aad barwaaqo ah barnaamijkanna waxaa tababar lagu siinayay sidiina intii la socotay aad daawanayseen Muna Jaamac oo gabadh model ama dharka xayeysiisa oo wadanka Britain degan waxa tababaraysay oo nolosha miyiga iyo kaalinta hablo ay kaga jiraan baraysay Raxma oo qoyskan iyadu ka tirsan reer Mustafa haddaba habluhu ama dumarku kaalin mugle ayay kaga jiraan horena ay uga jireen nolosha reer miyiga Soomaalida Maryama oo ninka reerkan iska leh Mustafa hooyadii ayaa iiga waramaysa bal hadda in ay jiraan waxyaabo iska bedelay kaalintii hablo ay ka qaadan jireen nolosha miyiga iyo haddii isbedel uu jiro waxyaabaha isbedelay halkana aad u qodax badan marka mar dhaweyd bay midii mudday waa inaan aad isaga ilaaliyo Maryama edda iska waran maasha Allah habluhu ama dumarku hawlaha ay ka qabtaan reerka miyiga ma jiraan wax iska bedelay imika hablii hore waa la oran jiray reerka ooman rara dhanka laba ayagoo dhaxay ay habeen saddexaad ka iman jireen anagu dunida aanu kamid ahayn kolka sida alaalada daawataan ee caawa seexdaan hablii ayaa salaada la soosin jiray halkaas la oran jiray u gala xoolaha oo lisoo ka kaca iyagoo daalan haddana xariirtii bay habeen maalintii sameyn jireen habeenkiina dufiye kabid bay feeri jireen hablii hore ma garat hawlaha aad sheegayso dhan de miyiga ilaa imika boo laga qabtay meanay sameeyeen way sameeyaan alooladan xariirta ay sameeyaan kabdi bay sameeyaan kabada way ku heesayaan oo waxay oranayaan salladaleed ma kugu saleeyeen gumi sixin guyaal raagay iyo maxawish lagu sameeyay salladaleed ma kugu saleeyeen gumi weeyaan waasaasi hadda ma garanaysaa marka waxa weeyaan hablihii way sameeyaan imika hablihii aqalada la galiyay waxaad leedahay wax isbedelo inaba dhacay mid hablihii sharaftii sidii bay u wadaan hablahan imakana dee iyagoo oo wanaagsan aqal meeshina ma fiiqdi bay marinayaan weel yar oo qubax wax lagu cuno way xalayaan ma garatay Soomaad garan dee wixismariskoodii cadayntoodii dee cadaanka dee dukaanka yaa lumay qaadanayaan ma garatay hablahan waxba iska bay bedelin midil baxaga ah u badnaata hawdi habli waxba iska bay bedelin shaqadoodu kida hablihii
واي marka waxaad leedahay meelba meeshii magaalada ka xigto ayaa isbedelku kaga badayay oo marka hawlaha faraha badan ee reerkii miyiga u yaalay ilaa imikana u yaala yaa qabtaa waxa yaala reer walba soo inani uma joogto tahay soodiga la habli hawl kala hayaan waxa uu qabanaya waxa iyagu qabtaan mooyane habli soo qabtaan mooyane hawsha kulul iyaga loo diraya lodkii ka yaryaraana guriga la oranaya ka shaqeeya haweenka waaweyn anigoo kala ana wixii tala ah iyo wixii tusaale ah ay qabanayaan waayahay reer miyiga halkaas ku yoorura ma garatay suugaantii marka kabdaha la sameeyay waxyaabaha kale la midka dadkan daba sidii ma u hayaan dadkan way hayaan kabada waa la xirayaa oo dariska sameeynaya waa la xiraya waa lagu heesaya halkaas garab inan taqaan baa garabka kaga soo guraysa kabada barelay xariir weeyaan ma garanaysaa xarig cad xarig madow shaal casbaa la marinaya ma garatay halkaas dabadeed lagaga soo orinaya heesta gabadhu kaga soo orinaysaa halkaas ay oranaysaa sixin guyaal raagayiyo maxawish lagu sameeyay salaada leeyay ma kugu saliilayna gumeed oranaysa ma garanaysaa awda laga keenyay alalag dheeray ilbari lagaga soo oriyay oranaysa waa tanoo timido tagina mayse matebed baa naloo firi subag baa nala siin bay leedahay baarqab waaseedo sariba mayne sagaal jiraan irmaanay koronkor cuni mayno koronkorku waa garowga koronkor cuni mayno kariba mayne karuur geel ma lahaya bay odhanayaan maasha allah halkaasay habli ka qaadayaan waxaad ii sheegtaa muddada dheer ee ilaahay cimrigaaga uu raajiyaa jirtay noloshii miyiga maxaa ugu weyn isbedelay baad odhan lahayd waxa isbedelay horta fudaydkan iyo xishoodkii dadka badankiisa wuu ka tegey laakiin xishoodkii daantaas uu inaga xigaa dadka yaan wada caayin xaggaas uu inaga xigaa xagga hawdka inaga xigaa annagu halkan ku nooleeday anuu rabsaan ka agaasaa lagu nooliyey inaan xishooto ragga dhinac marto geedka xagga iska soo taagtaa oo xishootaa xaggaasii kaa jirto maxaa kale isbedelay waxa isbedelay ragga kolkay noqoto raggii waa kan habeenkii maalintiina xoolo diiday habeenkiina dabadii diiday maalintiina xoolay diideen habeenkiina dabaday diideen way soo hoydeen ninka yidhi 4 inan baan lee waxaan buu yidhi inamada caana geela deeqi waayey meel 4 inan buu lahaa ardaaga deeqi dambaska deeqi waayey ma lahayn kolka nin waliba buuri daacan toobsaday iyo dambaskii ma garatay ninka 4 lahaana intuu reerkii reer ban imka halka ka muuqda furay ayaa 4 inan ba israaceen oo dhimbiriyaale meel la yiraahdo halkaas ay wada jaadoonteen odaygii reerkii wuu rayaxayo waa ban wuu cararo wuxuu reerka kulliba waa la rogayaa aan rogo wuu ka daba tegey kolkuu ka daba tegay isna jaad soo qaatay aanu cunayntii inamadii raamsanaya reerka aan rogo inamadii kolkiiba yaaceen ay reerkii qabteen marka hawshii dumarkay ku wada way ku wada dhacaysaa kolka ma garanaysaa horta rakaama jiro rag anigu deenin calaam ka soo baxa oo culuun leh oo ragga hadda imika wax kala garanaya ee magaalada jooga mooyaane indha dhaxaadkana dagmaysa luuqa ay raggii kacaanka ahaa sharaf male sidii aad maqlayseen maryama waxay aad uga hadashay in raggu ay kaalintoodii gabeen nolosha miyiga markay timaado aabi jaamaco isaguna aad iyo aad u yaqaano nolosha miyiga iyo ta magaaladaba ayaan weydiinayaa bal arrinta sabanada dambe aadka loo sheego aabow ee ku saabsan in raggii ay raabsanayaan oo xoolihii iyo reerkiiba ay dayaceen waxa ka jira haddaynu raggii hore eegno oo aynu dib u milicsano raggii hore baahidiisaa yarayd baahidaa yarayd wuxuu u baahan yahay baa yaraa qofkuna dee baahidiisa ayuunbaa dharkan u gashay u ahayd oo ku joogay ma garanaysaa oo ku fillayd markaa ninkaasi dharkiisuna 2 goo cadcad buu ahaa indhihiisuna way cadcadaayeen ilkihiisuna way cadcadaayeen caanuhu dhammaana way cadcadaayeen allaahuma salli calaa maxamed cadaygu ku cadaynayaa rag galoolbaha wuu caddaa wuxuu u baahan yahayba intiisa caana iyo hashiisa ayuunbuu u badnaa beriga hore imikase baahidiiba albaabo badan baa la furoo baahya ayay nagu soo furmay marka waxa weeye baahida inoo timina waxa ugu daran oo ugu xun baahida qaadka shayga qaadka la yiraahdo waa la wada raamsanayaa waa la fadhiyaa waa la waqti la hurdo iyo waqti la raamsanayo iyo waqti la warwarayo
iyo waqti xiimaayood muddo qofku inuu waalan yahay ayuunbay uun u qaybsantay ayaa waqtigii uu ninku u qaybsamay marka maasha allah waa jiraan rag nuuraya oo sharaf loo reerkooda ku filan oo shaqaysanaya oo shaqaynaya oo dadkooda u shaqaynayana waa jiraan dadkaa fadhiyana waa ay jiraan ninkii cabdilaahi cabdi shubeyl la odhan jiray ayaa ka hadlay waqti dhexe oo aan ahayn dee waqtiyadan imika ayaa yidhi door hore waxaa jiray wiil doob ku gaamuray oo hawsha loo diray weligii aan daalayn kuwa sigaarku uu dilayoo dacas iyo surwaal xidhan oo duhurkii markay tahay dawaqsan baa ka daba yimi buuri marka anna waxaan leeyahay qaar fadhiya uunoo aad moodo ma garanaysaa labadooda noodun kusoo eegayaanoo jaadu cunay ayaa ka daba yimi ii sheegay in badan aan hore u maqlay in iska daa reeraha waxay ku taraan ay dhibaataba imika ku yihiin raggii oo xoolihii la odhanayo aabbaa qaatay dee waa saasoo maalin aynu dhagax dhigaynay meesha la yidhaahdo ina guuxaa ayaa barkad weyn oo la yidhi xagga etoobiya laga sameeyo weyn oonu dul marray ceesaan ka qaylinaysa oo caada haysa ayaanu yaabnay deetana dadkii baanu weydiinay orohe ceesaantani hataabanina baa waa lagu ritayey arigoo daaqaya ayaa lagaga ritayey oo goodhowbu ninkii lahaa u imanayaao isagaa kala baxaaye wuxuu ku bixinayaa qaadka iyo alaabtaas ayuunbu ku bixinaya waa qaad markaa goormay u soo hoydaa reeraha dee waxay hooyanayaan oo laynoo sheegay goor dambe ayay soo hoyanayaan waqtiga yimaadaana saq dhaxalgeeba intuu soo hoydo inuu haddana markiiba jiibsado oo uu dabeetana maalinnimadkiina uu sugo inta qaadka imanayo markaa noloshiiba inay naga qaldantay ilaahay ay noo toosiyey adduun weynuhu waxa jiray baleegay waqti la ugaarsan jiray baa jirtayoo waqti xoololey baa jirtayoo beeraleydii waynagan marayno dad badan baa beeraley noqdayoo noloshii weyneyda ee industrialkii waa lagu socdaa inaynu diyaarada samayno oo inaynu kor u kacno laakiin waxa weeyaan raggeennii diyaaradaha samayn lahaa ee hore u socon lahaa ayuunbaa fadhiya ilaahayna fadhiga ha inooga kiciyo laakiin haddana xoolihii wixii abaaraha ka soo doogay waa kuwanoo waa fiican yihiin reerii bay la joogaan oo waa la foofinaya iminka de geel oo kale yaa raaca hadda haddaad leedahay raggii waa wada qaabsanaya horta geeli wuu yaraadayba waabuu iska yaraadayba geelii raysime ahaa ee aan dumarka laga durkin jiray reerka laga durkin jiray inta marna hawd iyo dhulfa ku maqnaan jiray ee u socon jiray boqol geel laba boqoloo geel intaasoo raysima loo kala qaybinaya ayay u kala qaybsan yihiin iyo reero ayaa loo kala qaybsan iyagoo dusha ka wada reeraba haddana ay kala qaybsanayeen markaasaa intii wale ee isku sii raasiba ay intay meel degto wadaagaa samaysan jirto qiimay lahaydoo geela raga ayaa haysan jiray heesahoodii baad ka garanaysaa kaalinta cilaan ee cidhiidhiyoon ee raka cabsaday adaygu cisho adaygu cilaalay imika qof odhanaya ma jira waa ragga wada fadhiya laakiin nasiib wanaagga geelii baaba yaraaday oo madhado xoogayga hadhayna dee fardaale iyo deeq iyobaa inoo ururiyado caanahaynu ka dhannaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay mustafaan u tegayaa oo isaguna ah ninka reerkan iskale aanu la joogna martidaanu nahay mustafow aad baa looga dayrinaya kaalintii ragga adigana waan ku arkayo maanta reerka kamaad dhex bixin raggii mooda saasay noqdeen ragga imika jooga dee waa iska wada howlgab isagoo nin walba iska mashquulsan yahay uu ku mashquulsan yahay geedkan qaadka la yidhaah uu fuushan yahay haba yaraatee dee halka ka caraabi laana uu marka subaxii yimaado uu howlo badan u qaban lahay halkaa ay ka seegeen oo markaa uu qaadkan ku mashquulsan yahay qaadkaa cunaya ma wax kaloo dee naftiisa waxu taran aanu cunahaynin laga yaaba habeenkii saqda dhexe inuu ka baxoba guriga oo ka baxa tuulaha isagoo ama toosh shirshidanaya ama guuro gelayo deedna hareeraha iska eegaya sidii tuug la qabtay waxaa kaloo aan jeclay mustafo inaan ku weydiiyo mas-uuliyadda qoyska soomaaliga ah ee reer miyiga imise jir bay ku bilaabantahay oo ilmuhu uu hawsha guriga kaga qayb qaataa wuxuu ku taabad qaadaayo ilmaha yar ku raaci gaala maqashoo kale 5 jir arigoo kale dibadda oo foofaa ilmuhu ku qaabaa 8 jir waxa lagu aamini karaa wadaantoo kale ama barkada markuu ka dhaaminayo kale ilaa 14 jir ilaa 12 jir ayuu wadaanta ku qabanaya de marka kale mas'uuliyadda qaadan waa markuu reer yeesho ninba soo arkaba iyo nirgaha iyo geelayana marka uu qaangaar yahay la dhaahdo isaguna uu qaangaar yahay geelana isaguna ama maali kara ama hashi laabi kara marka ama qodaxda ka bixinayo kale ama walisayo oo kale hashi toojada heedu xidhayo oo kale tabardabeed waxa la dhaho ku xidhayo kale hashi toojada oo kale cararto kale waa nin marka xoog leh oo xoogiis marka waa qaangaar waa nin kala dhaahdo dabadhoon marka uu ka yara baxayo geelu xirinaya marka mas'uuliyaddu waxaad leedahay 5 jir laga bilaabo berigii hore ha imaka laakiin dee ilmaha 5 jirkii meelaha taagan wadooyinka waa buu ka ilbaxsan yahay oo kale ugu bixmaysid
كيمك وقت يمكن تاجني waa tahay xagga yagan dambe roob baa iska soo qabsaday weliba roob xoog luu eeg yahay roobkaasi mustafow intee buu inoo jiraa imaka roobkaasi imaka wuu dhow yahay wuxuu inoo jiraa imaka ilaa iyo wuxuu inoo jiraa ilaa iyo 3 mayl buu inoo jiraa dhawaaqiisi waa la maqlayaa dhawaaqiisi yoonkiisi waa la maqlayaa imaka leerkiisi ma waa kaynahayaba dhibicun baa nagu dhacaya marka waa inaanu xagga guriga u sii dhawaano roobkii aan ku cabsi qabnay waa kaa soo shuuxay dhibiciisuna xoog buu leeyahay dumarkii xaggii aqal Soomaaliyeed ay ku ordeen annaguna gaarigii baanu maceen bidnay gaarigaanu markaa ka jirsanaynaa roobka arigiina haddii halkaa aad ka arki kartaan wuxuu ka jirsanayaa qaar ka midii geedkaa hoostiisa waa arigii waaweynaa weeye kuwa yaryaraa ee maqashii iyaga waa laga soo xareeyey marka arigii waaweynaa geedkaasuu isaguna jirsanayaa adeega Telesom Cloud waa adeeg ku tusaya tiknoolajiyadii u dambeysay ee Telesom ku hayaantay 10 sanadoodna lama tiigsan karaayo adeega Telesom Cloud adeegyada Telesom Cloud waa tiknoolajiyad casri ah oo ka kooban qalab xogta kaydiya iyo maamulidda barnaamijyada kala duwan ee shaqooyinka shakhsiga ganacsiyada shirkadaha iyo hay'adaha uma baahanaysid qalab gaar ah oo tiknoolajiyadeed oo aad dhigato goobta shaqada adeegyada Telesom Cloud waxa uu suurto gelinayaa shirkadaha iyo hay'adaha in ay maamulaan barnaamijyada ay ku shaqeynayaan mar kasta iyo meel kasta si hufan oo dabacsanaan adeega Telesom Cloud waa adeeg casri ah oo mar kasta ka jawaabaya rabitaanka macaamiisha xogtaada iyo barnaamijyada shaqo oo aad meel kasta ka isticmaali karaysid xogtaada oo ammaana kharashyo badan oo kaaga bixi lahaa inaad si samaysato oo iyaguna ka yaraanaya kaydin joogta xogtaada iyo dib u helideeda haddii aad backup u baahato oo mar walba ku diyaara adeegani waxa isticmaali karaya ganacsatada xarumaha caafimaadka goobaha waxbarashada shirkadaha gaadiidka warshadaha shirkadaha website-yada iyo waliba shirkadaha tiknoolajiyada ka ganacsada iyo samaynta programyada iyo wixii la mida haddaba adeegan iyo tafaasiilintaasi ka badan ba kala xidhiidh ciwaanada qoraalkoodu ay ku muuqanayaan wiilgeel siraanqaashadu karayn waa waxaa dhulkeena u gaarae laynagu garta reer guurayiyo gabadh simaatidcaani waa waxaa dhulkeena u gaarae laynagu garta geed qodaxleyo guduniyo hangool waa waxaa dhulkeena u gaarae laynagu garta dalguduudanon gobol doonahayn waa waxaa dhulkeena u gaarae laynagu garta dibige waxa weeyaan geelo kolba horta intii dhex joogtaa raacda ambaha yaraata ambaha badnaato imanka geela matalan 2 nin baan kula joognaa geelu marka uu soo dareero ee xeradiisa ka soo dareero wanaagiisu marka doonaysa inuuna ka cararin waa inaad geela si wanaagsan waxaan ku dhabaa ugu soo rido halka la doonaysa marka aad tamacdeenad kiisu marka dabeedna dhabaa si wanaagsan ugu soo rido baashaas uu ka raacaya nina dabadu ka raacaya haddii baasha kala uu ka baydho kaagi dabada ka wadaba ka wareegayo kii kale uu soo wareegay dabadiisi saamuna geelo kala xadhin dhabada dabadna ku soo ridaysa dhabada marka dabadna ku soo rideed keentii aad ku waday aad geysad aad u qasti lahayd geeli dabadna kii baashu uu soo socdaa kan uu eeganay madaxii baad ka wareegaysa waad soo dabalsa kii kale madaxii buu ka soo wareegay xaqii dambe waa ka wada timaadeen marka madaxii baa isugu timaadeen wooh baad oranaysaa geela wooh baa lagu xasiliyaa wooh marka taa inta uu ku xasiliyo woohdaasad kula wareegaysa marka dabadna geeli soo dabaashay eed aragtay geeli dambe inuu ku xasilay dabadii baa geeli uga wareegaysa waa raacitaankiisi dabadii baad geeli uga wareegaysa inay wax kaan noqdeen inay xaqii dambe xeradii wax u noqdeen dabadii baad kaga wareegaysa geeli dabadna sidaasaad woohdo haysaad ku xasilinaysa wax haday jiraan wax ka yar magaranaysa hadii hal yar iska fidmo wala ahaydo geela markaba ka dhex dhacda ishaad marinaysa hashii dabadna markaad saa u soo marsaa dad artaashi inay ku dhex jirto geeli dabadna sidii baad ku xasinayso wooh baad oranaysaa raacitaankiisu markaa waxa weeyaan waa ka mar uu hawl badan yahay baa jirta oo kaliil tahay saacsi uu geelo saaciriyanayo marka uu saaciriyanayo geela waxa weeyaan mar qura waxaan ku ka fadhiisin may sida qasab baad ku celinaysaa hashiisa dheeraysa seeta hadaad hayso waad ku xidhanaysaa marna ka fadhiisan maysid
marna waa taa marka labada hore markan kuugu celiya dee hadduu kuu xasilo markaa geedkaas ka yar fadhiisanaysa waad u yar hargelaysa dareenkaagu laakiin nin shaqaynaya ahaw haddaad laakiin markaba aad dee iska seexatay geeli oo dhabaynaya waxa weeyaan caawun baad leedahun waxya geeliin iyo wayga carabay been baad sheegtay xillimuu kaa lumay looma baahna dee waa inaanad been sheegin inaad tidhaahdo war geela aad ku wareegto xilli saarta wixii ilaahay kuu qadaray kugu yimaada war geela waqtigaas iga lumay baad leedahay kaasuu raacitaankiisu waa kaa adu marna ka seexamaysid ka seexanmaysid imankoo kale waad iska fadhiisan karta waa xasiliyo waa geelan banaan waqti waxaa jira aanad kaadida aad is odhanaysa qof kaan dee dadku aad odhanaysa talo sare jooga maskaga kaadida yaa jirta markii wax kaa lumaan oo kale geela mid kaa luma ama kaa haro sidee lagu kala garanayo waayo anigu isku keewada egyihiin waxaa lagu kala garanayaa imanka hashaasu iyo hashanu ma isku midaba maya waa kala midab ma isku ayniba maya tan iyo qaalintaasu ma isku midaba mise isku ayniba maya way kala duwan qaalinka iyo qaalin aan ku tusi doono hoos uga sii yar aduu qaalinka iyo midka ka sii yari ma isku midaba ma isku ayniba maya adiga iyo cabdi hareer imika miyaa la isku keen qaldaya maya waxa weeyaan xoolo saasan isugu eekay markuu qofku ku dhex dhasho waxaan dhexdiisa awde qabatimo laakiin marka aad ku cusubtay dee kulli waa laga yaabaa inuu isaga kaa yar magaranaysaa dee neefkii aad umaad kala baro geeli baabaan kala garanay dee waxa weeyaan markaad xoogay joogto waad kala garanaysaa tabtaan dadku isugu eekayn buuna geelina isku mid abo ahayn isagoo hadday isku awr dhaliyaa ood garanaysa inuu awr wada dhalay haddana isku mid ma markaad u fiirsato awr wada dhalay miyaa marka waa marka matalan imanka aabbahaa so waxa laga yaabaa intaad tihiin dee sow aabba un idinma wada dhalin awrka geela aabba wada dhalaa la yidhaahdaa awr dhali aabba wada dhala geela aabba wada dhala sanadkaa ku dartay kan oo kale waan riguhu wada dhala kal dambe haddii ilaahayna gaadhsi markaa geelu isuma midab eeka markaad dhexdiisa barata eed joogtana hal walba midabkeeda waad garanaysa imanka anoon tirin markaan soo caraabno wallahi anoon tirin baan jeekinka ku soo saaray hashayga hadhe way qayba dhinac bay aniga iigu calaamadsantahay intii caarana intii hala waaweyna intii hadhaayo wahayd way hadhaayogu waxa la yidhaa hal gaabise baa jirto had iyo gore geela marka la caraabiyo geedka ku agagasta oo iska kaa yar eegto kayn iskaga kaa gudubta hal waxaa jirta geelaba ka dhex booda hal baal isu socoto geelaa diida dhexgelkiisa cidhiidhiga inay dhex gasho oo keliga socota maxaa ku kalifa inay keliga socoto waxaa ku kalifa waa dabeec ilaahay ku abuuro dabeec ilaahay ku abuuro dhinaca inay baasha iska martay doonaysa hal waxaa jirta sida dadkoo kale ishaada inta iska eegtay geedka isku duugayso doonaysa inay daaqdo gabashana ku jirto odhanaysa waxa weeyaan haddana waa neef xoolaa haddana tabtii dadkii bay ku siyaasadaynaysa inta kugu qaadatay inaad waxaan barato hadda waxay ugu qaadatay marka aynigayga waad aragtaa dee dhabankaygu ka muuqda waxba aanu ku odhan maayo gugaasan qabo soomaali baan haddana waxbaan kaa yar qarinaya ilaa maalinka aan maanta joogo iyo ilaa waxaan kuhi intii aan ka gaadhayo waxaan kuhi ilaa 8 jir aan ka gaadhayay iskuul kale badde maan baran wax kale maan baray geelaas ma aabahay lahaa intaas baan ku dhex jiro geela maasha Allah iskuul kale baan aniga layma barin jaamacad kale layma barin geelaas baan ku dhex jiray qoorta ku xiran hadda waxay tartaa hasha kaa hadhi lahayd had iyo gooraale koorta waxa lagu xidhaa amba hal riman oo foolan soo isleedo way ka fool halaabi oo dhow amba waxa lagu xidhaa hal hadhaayo tan haraago amba waxa loogu xidhaa geelu hay isugu ka dhageysta markuu dee banaankan oo kale aanu joogna kayma adag oo kale imaka kaymaha foorka oo kale kula galo hashi waxay oranaysaa wallahi waa kan geeli daaqaya marka koortu dho maqasho tii kaynta weyn ku dhex jirtay dhegta u dhigaysa waa iska daaqaysa haddii laakiin geelu bilaa koori waxa oranaysaa keligaa baa meesha daaqaya amba saddexdii noono hashi way dusaysaa oo geeli kale uu tagay marka faa'iidooyinka badan bay leedahay koorta reer guurayiya gabadh simaatidcaani waa waxaa dhulkeena u gaarae laynagu garta geed qodaxlaya guduniyo hangool waa waxaa dhulkeena u gaarae laynagu garta dalguduudanon gobol doonaha
waxa